بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa salaanka bacdi ballanteen waxay ahayd subscribe like share official dadka nagu cusub dadka nala joogayna oo ku maadsan yihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo aan u soo galay hal qodob oo baraha bulshada aan ku arkayay falcelin badan oo ka dhacday qodobkaas oo ay dowladda Soomaaliya maanta ay soo socday waddanka aan dariska nahay walaalahayna dalka Kenya inay soo rogtay qof kasta oo baasaboorka Kenyaanka wata in uu fiiso ogolaansho ah safaaradda soo weydiisanayo dadka diblomaati da baasaboorka watana ay la soo xiriirayaan wasaaradda arrimaha gudaha haddii aan dul istaago labada qodob aad bay u mahadsan tahay dowladda Soomaaliya waana markii ugu horeysay tallaabada ay qaado anigu wax badan baan ogahay Kenya dhowr iyo 10 sano ka hor baan joogay waana ku laablaabtay baasaboorka Soomaaliya wadamada diidan bay kow ka ahay adigoo xitaa fiisa dalbaday oo adduunka waa la yaqaanaa fiisada qiimaheeda waa $50 wuxuu ku helayaa qofka Soomaaliga ah fiisada uu dalbado $500 bay ku tagaysaa isagoo u maraya koona waxaana sababay dowlad la'aanta iyo burburka iyo kala qaadanaanta maanta ay dowlad awood leh adduunka naqstay ay Soomaaliya leedahay aad bay dowladda Soomaaliya ugu mahadsan tahay waana soo dhaweynayaa waana taageersanahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajona waa bogaadinaya waana madaxweynaha aan u bixiyay anigu hangaliye waan hangaliye markaad wax tahay adigu baa dadka dariskaaga og yihiin waxa tahay markaadan waxba aan lahayn adigu waxba ma tihi waxaa marka tilaabadaas ay يعني أي أتاهي هرمر مدة الصوماليات وواحد أتاهي مدة الصوماليات مركز فكرتي بدون هذا وحنا نقول جلوبا هذا وعن كده جسني إذا عدنا وعن كده جسني وضع كلاك كذا كنا هاي ورك عالم كا هو بدان دولة الصومالية ما تاهي كده عقبي مثلاً واحد لكن راعي لبدا ودن علاقتكود ما يعني اول واحد كسر يعني صار عنايا ان ايليين ان لبدا دولود اي شيء سهايين باسبور الصوماليا اي كان يكون يعني الصوماليا لو يماني انا رايفل لكن ما اهين شعب كانه waxa lagu baareeyay wajeer anigu wajeer hadda ka horana u socda Uganda waxa ugu dhacday iso والله كل اللي بيتوكل عليه مقدش أنك صدوري وتشرب بنا لمسيه بلاد من توعن لو كسمية صدح ساعة بلاد من لو كسمية وكتر مي وحنا نسوي على وان شو مكيات بصير ترانسيت بانكو عكاني يعني وتشرب على جباري فيري شرعية taas marka waxaas yani aan uga bixi karnaa dawladdeena inoo ka dambeeyay aad bay ugu maasantay kilib ma inuu daawanayay oo madaxweynaha Uhuru Kenyatta wuxuu yiri Soomaaliya baasaboorka on arrival fiisada ma laga qaadanaya true straight Muqdisho والله إيماني جربت صوب عيسى إيماني سا كينيا نيروبي يعني وحاس متغنى أنا هل بعد أقول يسوي وإن دولة الصومالية أي أولها الموسى وإن الموشنا قرن نمذن وضن كهذا أديقاي وحنا الله الله سياسيين تعال قطع كاشة على قطع البوم عيني ما كان مرشح كوميدي ولي أنا متأكد شيء اللي بدأ من وطن الصومالية أي هجامية
عندنا ما خيانة ما فهمت مركا دولة الصومالية واحد قبصانية هذا تنزانيا بس أوك الصومالية في زمن أمرا فيل هدي آد جوجل جريسي وأقشة يعني دولة الصومالية ما أوجا لكن نجا waxaa jira checkpoint dhexe baa jira oo aan ahayn dawladda Tanzania aysan ahayn laakiin checkpoint-gaas uu yahay dad baaxnimay waxaan ku codsanayaa dawladda Soomaaliya hawshaas inay faragelin ay ka samayso baan ku codsanayaa aad baan idin salaamayaa intaasaan soo dil istaagay waana mahadsantihiin mana ku sii dheeraanayo waa degdegsanahay weliba يعني كليب كان هدوء سكين أدبر هذا